السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال ملول بواد جوجتان كسو دوادا كنال كان هيكاتشي. Today waxaan qaadanaa maanta cashir liyada describing people qeexitaanka dadkii baan qeexaynaa annagoo eegayna dherarkooda, midabkooda, da'dooda iyo waxyaalo lamid ah. halkan cashirka waxaan kusoo qoray erayadii nambaradooda. halkan waxaan kusoo qoray eraygiyo English, halkaana waa asagii af Soomaali ah. haddii mataqaanaa cashirka kadib aad daawatay adoon waxa ogaan ka erayga macnihiisa adoon u baahnayn in waxa weeye lagu sharaxo, laakiin muhiimadu waxa weeye eraygan say ugu dhawaaqaysa cashir ku xigana haddii eebaydma waxaanu ka dhigi doonaa annagoo erayadan jumlada ku dhex isticmaali doona haddii lahayd cashirka aan guda galno. Okay, erayga koowaad ee aan dad ku qeexna waxa weeye young. waa midka ugu horeeya. qofku young waxa laga wadaa waa dhalinyaro, waa qof yar. erayga labaad waa old waa duq, waa qof weyn oo da'a macna. middle aged waa da'da dhexe mataqaanaa adiga 40-30 meelahaas oo kale. tall waa dheer. short waa gaaban. average waa celcelis, heightna waa dherarkii. marka waa dherar dhexdhexaada weeye oo qof mana dheera oo aad uma dheera, mana gaabna oo waxa weeye gaabni laguma tilmaami karo. marka waa qof iska dhexdhexaada. dwarf waa cilinka iyo gaabnaanta maxay kala duwan yihiin? cilanku waa qof waxa weeye ciyaalka dheerar leeg, laakiinse gaabnaanta waxay noqon kartaa qofku inuu averagekii ama mataqaanaa dherarkii dhexdhexaadka ah ee dadkaas lagu yaqaano markii cilmi baaris lagu sameeyo. tusaale ahaan kale dherarkii dhexdhexaadka ahaa inuu qofkaasi ka gaaban yahay baa lagu tilmaami karaa qofkaas waa gaaban yahay, laakiinse dwarfku waa qof cilina oo koritaankii ka yaraaday. okay, midabka maxaa ka mid ah? black. I'm black man. waxaan ahay qof madow. alright. okay, so black waa maxay? waa madow. black waa madow. white waa cadaan. marka waa qof cadaan ah baa dhahaysa mataqaanaa madow ah. waxyaalahaas oo kale aad mataqaanaa isticmaalka Soomaaliga markii de qofka qeexaysid. qofkan waa qof duq ah, qofkan waa qof dheer, qofkan waa qof dhalinyaro ah. yacni waxaad tilmaamaysaa qofku wuxuu yahay ahaanshihii. laakiin Englishka waxay isticmaalayaan erayga black madow oo qof madow ah, white qof cadaan ah. alright, so erayga ku xiga waa strong waa xoogan weeye. xoogan. muscular waa qof muruqaysta ah, waa qof gym intuu qaaday waxa weeye isdhisayo waxa weeye nin adag weeye ama gabar adag weeye. fat waa buuran. thin waa qof caata ah. thin waa caato. slim waa qof dhuuban. caatada iyo dhubnaanta way kala duwan yihiin. caatadu waxa weeye waxyaalo badan baa keena, caafimaad darre inta badan u badan tahay, laakiin slimku qofku waxa weeye asagaaba is yareyn kara. wuxuu cuni karaa cuntooyin, waxyaalo badan baa keeni kara. gym buu geli karaa, wuxuu iska dhigayaa qof slima oo dhuuban macna. ama Soomaalidoo kale waxay u dhalatay dad dhuuban. cashirka intaas kusoo gabagabeynaya insha Allah. hadal badan ma geli doona cashirka ku xiga waxaan ka dhigi doonaa haddii eeba idmo cashirkan oo jumlada ku jira haddii ilaahay si aan u fahanno waxa weeye erayga waxa laga wado, qaabka loo isticmaalo, sidoo kalena aan awood u yeelano inaan adeegsano haddii ilaahay. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.